madaxweynaha la doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta xafiiska si buuxda ugala wareegay madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo lagu wareejiyay galal ay ku jiraan dukumentiyada qaranka hadiida lagu soo gudoomo magaca Soomaaliyeed iyo calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya madaxweynihii hore Soomaaliya ayaa u mahad celiyay dhammaan hay'adaha dawliga la soo shaqeeyay 4 sano xilka uu hayay waxaan rabaa marka inaan dadka Soomaaliyeed guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada hay'adaha kala duwan dawladda dhammaan inaan ugu mahad celiyo 4 sano la soo dhaafay sidii wanaagsaneyd ee dalkan uga soo shaqeeyeen wax qabadka weyn ee maanta aan ku naaloonayna ee sababay waxa maanta dhacay eventiga maanta dhacay inuu dhaco sabab u ahaa dadkii ka soo shaqeeyo dhan ama dawladda dhexe joogan ama maamul goboleedyada iyo dalka qaybihiisa kala duwan ha joogan aad iyo aad ayaan rabaa inaan ugu mahad celiyo oo aan iraado shaqada aad soo qabateen oo wanaagsanayd ayaa sababtay maanta meeshan wanaagsan inaan soo gaaro marka taas dadka Soomaaliyeed iyo hay'adaha dawladda ee kala duwan dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada bale ma haddaasaan u jeedinaa dad madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlay munaasabadda xil wareejinta ayaa xusay in hanaanka xilka ay kula wareegeen ay tahay taariikh dad badan ay maanta daawanayaan waa maalin taariikhi ah oo ummadda Soomaaliyeed iyo caalamka meel kasta ay arkayaan sida aan isugu wareejinayno nidaamka iyo dawladnimada runtii waa maalin taariikhi ah waxaan rabaa inaan u mahad celiyo shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan ugu bishaareynayaa dawladdaani waa dawlad shacab idinka iska leh idinkaan dib idinku soo celinaynaa waxaan idinka codsanaynaa inaad la shaqeysaan dawladdan oo aad gacan siisaan idinka iska leh waxaan idinka rabaa inaad nagala shaqeysaan haddii noqoto canshuur aruurinta iyo dhaqaalaha haddii noqoto nabadgelyada ina ilaashataan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u mahad celiyay beesha caalamka doorka ay ka ciyaareen taageerada Soomaaliya wuxuu si gaar ah carabka ugu dhiftay dawladaha ciidamada u soo dira Soomaaliya isagoo xusa Soomaalidu inay dhisan doonto ciidamo qaran marna la sagootin doono ciidamada AMISOM iyadoo la xusuusan doono doorka ay ka ciyaareen taageerada Soomaaliya waxaan rabaa inaan u mahad celiyo beesha caalamka iyagana runtii gacan weyn ka geystay inay dawladdan meesha ay joogtay soo gaarto AMISOM iyagu naftigooda hawl badan bay meesha ka qabteen waxay ka difaaceen maxaan ku rahaa dhibaatooyinka iyo dagaalada joogtada ah garab ay ku siiyeen dawladda inay sidaas noqoto ay shaqeyso waa ku mahadsan yihiin kulli maxaan ku rahaa dawladaha ciidamada halkan ay joogaan waana wada shaqeyn doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo ilaa aan ciidamadeena dhisano kadibna iyagoo walaalaheena oo taariikh wadankan geystay ama taariikh ku leh inay guriyooda ku noqdaan hadduu Ilaahay yiraahdo waa inaan u mahad celino shacabka Soomaaliyeed waa inuu mahad celiyaan ciidamadaas siiyay naftooda u horay naftooda maxaan ku raahdaa wax kasta oo bini aadam siin karo wax nafta ka weyn ma jirto ugu dambeyntiina madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa salaan ka qaatay ciidamada Bambeyda intaas kadibna wuxuu dib ugu laabtay xafiiska maanta taladiisa uu la wareegay ee aqalka madaxtooyada Soomaaliya halka madaxweynaha hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuudna uu gaadiid aan badneen uu ka raacay xarunta madaxtooyada isagoo ku biiray shacabka deegaansanaya caasimadda Muqdisho dad badan ayaa rumaysan kari la inay dhici kareyso xaflad xil wareejin heer madaxweyne dal colaad ay ka jireen 25 sano la soo dhaafay waxaan halkan maanta xilka madaxtinimo kala wareegay madaxweynaha la doortay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Farmaajo ayaa dib ugu laabtay xarunta madaxtooyada ee gadaashayda waxaan albaabka madaxtooyada ka baxay madaxweynaha waqti uu ka dhamaaday ee mudane Xasan Sheekh Maxamuud Cabdulqaadir VOA Muqdisho